السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي سoo dhawaada meel kastoo aad joogtaan adduunyada. insha Allah waxaan doonayaa caawa inaan idin tuso application aad u qiimo badan. application-kan wuxuu yahay sida aad ku ogaan lahayd 2 bil ka hor ama sanad ka hor ama 3 bilood ka hor ama 8 bilood ka hor sida aad ku ogaan lahayd cidii ku soo wacday. insha Allah haddii intaanu guda gelin fadlan fiidiyogan fadlan channelka subscribe saar si aad noola socoto waxyaalo aad inoogu muhiima haddii aad fiidiyogana ka hesho insha Allah like si insha Allah waa kan application rabno inaan insha Allah idin sharaxo waa kan application magaciisa waxa la dhahaa E2 PDF back and restore application insha Allah waxaad ka helaysaa Play Store ka dad inta ku qorto haddii aad ku dhufato insha Allah inuu guda galno application-ka waa kan labada option ba inoo soo baxaya marka insha Allah inagu option-keenu rabno waa option-kan rabno insha Allah waxaad dhahaysaa click ba ku dhufanaysaa click markaad ku dhufato sidan ba ku soo baxaysa insha Allah marka waxaan rabaa inaan ogaado 2 bil ka hor ama bishii 10aad aan soo dhaafnay ama bishii 9aad ama bishan aan ku jiro koodeedii inaan ogaado cidii soo wacday hadaba sidee baan ku ogaan karaa insha Allah waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay general call halka markaad ku dhufato sidan baa ku soo baxday laba option ba halkan ku yaala labadan option halkan ku yaala sorry haysiis labadan option halkan ku yaala waa labada option aad u baahan tahay inaad xogta aad ka raadiso sanadka doonayso inaad xog raadiso marka sanadkan anigu rabo ama iyo bisha aan rabo waxa weeye 2022 bishii 10aad afarteedii baan anigu rabaa waa kan halka ila fiiriya waxaan iri daatada rabo inaan ogaado cidii soo wacday bishii 10aad afarteed 2022 xogta waan u baahanaa inaan ogaado haye talabaadna waxa weeyaan inaan ogaado bishii 10aad labadeedii 2022 hadda waa inaan ka soo dhigtaa halka markaad ku dhufato insha Allah waxaanu ka dooranaa 2 waa ka ila fiiriya halka waxaan rabaa inaan xogta ogaado ama cidii soo wacday bishii 10aad afarteedii 2022 talabaadna waxa weeyaan bishii 11aad oo hadda aan ku jirnaa labadeedii 2022 inaan ogaado labada xog baan rabaa inaan ogaado hadaba sidee baad ku ogaanaysaa sida markay tahay insha Allah wayna soo diyaarsanay xogta ama date-keenu rabno inaan ogaano waa October iyo November bishii 10aad iyo bishii 11aad hadaba halkaas waxaad ku qoraysaa ama aad ku safgaraysanaysaa daatadaada magac baad u yeelaysaa anu magacan u yeelaya daatadeedu waxa weeye my data saa markay tahay in halkaas aad ku dhufanaysaa halkaas markaad ku dhufato waxay ka dhigan tahay daatadan waxaad iigu bedeshaa as PDF aan iiga dhig markaad PDF aan ka dhigato insha Allah baad automatically list ahaan buu ku siinaya saa markay tahay waxaad ku dhufanaysaa export waa wareegaya waa kan daatadii oo dhan waa kan insha Allah anigu laakiin daatada intii ugu muhiimsaneed ama intii aan dhihi lahaa name ama phone number waan qarsaday kaliya waxaan insha Allah idin daayay qaybtaas ila fiiriya qaybtan haddaan isla eegno time waa xilligii la soo wacay 2022 bishii 11aad labadeedii saacadu markay ahayd 9kii adigu 10 ku dhawaad baheed xilligaas baheed xilligii uu qofkaas soo wacay marka qofkii soo wacay anigu waan qarsaday laakiin insha Allah adiguna waad arki doontaa haddaan ka gudubno waa kan ila fiiriya qaybtan oo dhan waa bishii 11aad qaybtan oo dhan aad arkayso waa bishii 11aad halka ila fiiriya marka halka ka bilow halka ilaa ay hoosta waa bishii 10aad marka tan hoos hadaynu isla fiirino qaybta hadaynu isla fiirino waa bishii 10aad bishii 2022 bishii 10aad saacad bishii markay ahayd 31 xilliga uu qofkaasuna soo wacay waxa weeye waa 10:16 marka waka insha Allah waa kan hoos baad u soconaysaa daatadii oo dhan waa kuwa halkan haddaan kuu soo sharaxo
وكا duration قفك انت دقيقات لهذا الشيء و 3 دقيقة يا سقال marka insha Allah daatadaas oo dhan xogtaas oo dhan waa sida hadaba daatadan si ku ogaan kara ama xagee ka heli kara waxaan ka heli karaa waad ka soo baxaysaa insha Allah daatada marka soo safgarayso waxay ku tigaysaa meeshaas halkan baad imanaysaa file my file baad imanaysaa my file marka timaado waxa si guda galaysaa internal storage markaad u soo gasho insha Allah waxaad dooranaysaa waxaad halkaaba ku failka halka ku yimid daatada xogtaadii oo dhan halka ku timi markaad ugu dhufato waa kan magacayna soo dooranay marka magacayna soo dooranay waka markaan ugu dhufto waka daatadii oo dhan waka xogteedii oo dhan marka insha Allah aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.